بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ummadda Soomaaliyeed waan salaamayaa meel walba ay adduunka ka joogaan. waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. fadlan fiidiyowgan haddii aad uu ku soo gaaro sii faafi, waxaan kaa codsanayaa inaad sii faafisid si ay u gaarto ummadda Soomaaliyeed intii karaankeena. waxaan rabaa inaan wax yar ka iraahdo heshiisyada ka dhacay Baxardaar iyo Ethiopia iyo arrimaha Soomaaliya ka quseeya iyo faa'iidooyinka aan ka heli karno iyo dhibaatooyinka naga soo gaari karo intaba. waxaad ogtihiin heshiisyo in lagu soo kala saxiixday magaalada Muqdisho, Addis Ababa iyo Baxardaar oo Ethiopia ah oo ah halka uu ku duugan yahay awowihii madaxweynaha Eritrea Afwerki. ma garanayo sababta loola aaday meeshaas, laakiin taariikh weyn iyo waxa ku jira arrimo kale oo u baahan mararka qaarkood in la falanqeeyo. heshiiska intaan aragnay waxaa jira heshiisyo kale oo qarsoon oo soo shacbaxaya hadda, qaarkoodna la ogaaday oo ay ka mid yihiin in ciidamo Eritrean iyo Ethiopian la geeyo Kismaayo, in la geeyo Baydhabo, in la geeyo gobolada dhexe Galgaduud, in la geeyo magaalada Muqdisho iyo Villa Soomaaliya. ciidamadaas oo tiradooda lagu kala qiyaasay 1500 oo Villa Soomaaliya ah ilaa 1500 oo Kismaayo ah, 1500 oo kale oo Kismaayo ah oo Eritrean ah, oo gobol dhac u noqon doona 5000 oo Ethiopian ah oo ka soo gudbi doona maxaa la yiraahdaa xuduudka Soomaaliya iyo leedahay Ethiopia, oo Baydhabo imaan doona la yiri ilaa iyo Muqdisho isku furi doonaan iyo Baydhabo. 5000 oo kale oo la yiri ayagana gada ayay ka soo gudbi doonaan Luuq iyo Baar Dheere, oo qaban doona gobolka Jubbada Dhexe Bu'aale xarun u ah maamul goboleedka Jubbaland si lagu cadaadiyo Axmed Madoobe. kuwa kalena 3000 ugu qiyaasayna waxaa la geyn doonaa Gurceel iyo Dhuusamareeb, iyaguna waxay isku furi doonaan gobolka Mudug iyo inta Galmudug ilaa iyo Hobyo ayay tagi doonaan. heshiisyada lagu soo heshiiyey waxaa ka mid ah in 4 dekedood ee Ethiopia loo saxiixay la geeyo ciidamo Ethiopian iyo ciidamo Eritrean. dekedaas oo ah Hobyo, Marka, Barawe iyo Kismaayo oo ah kuwa ay soo maal gashan doonaan dawladaha Carabta iyagoo loo marayo magaca Ethiopia. Ethiopiana lagu wareejin doono ciidan ahaan iyo physical ahaan iyagoo ay u controli doonaan. walaalayaal, qatarta weyn ee nagu soo fool waxaa ka mid ah in la yiri Ethiopia iyo Soomaaliya iyo Eritrea waa la isku darayaa. waxaa kaloo heshiisyada ku jirta kuwa la sheegay in la yiri Ethiopia iyo Eritrea iyo dalalka gobolka oo dhan waxay ilaalin doonaan madax bannaanida iyo maxaa la yiraahdaa dhul ahaaneed ee dalka Soomaaliya, taas oo ah yacni mid ku tusaysa inaysan Soomaaliya hadda xor ahayn oo maxaa la yiraahdaa ay ku soo xadgudub bareer ah ciidamada Ethiopia iyo dawladda Ethiopia intaba. marka dalal naga haysa dal iyo dhul aan leenahay oo Eritrea ay ka haysato dawladda Djibouti ee walaalaha aan nahay dhul Soomaaliyeed oo Djibouti wadda Soomaaliyeed ay ka haysato oo aysan siinin. Ethiopia oo dhul Soomaaliyeed haysato, Soomaali galbeed dhulka xorta mid ka weyn naga haysata oo aan siinin. Kenya oo NFD ilaa iyo Lamu naga haysato oo aan siinin. dad naga tiro badan, naga luqad duwan, naga af duwan, naga maxaa la yiraahdaa ishak naga dhan walbaba diin ahaan iyo dhaqan ahaan iyo aan ku kala duwanahay, in la yiraahdo hal madaxweyne ayaa loo sameeynayaa, hal dal ayaana xukumaya. qatar weyn oo Soomaaliya ku soo fool ayay tahay taasi, sababtoo ah Soomaaliya waxa ay ku dhex lumaysaa oo ku dhex dhacaysaa badweyn aysan ka soo bixi karin. ra'iisul wasaaraha Ethiopia wuxuu yiri bad Soomaaliya meel istiraatiiji ay ku taala, bad dheer ayayna leedahay. macquulna ma ahan in Ethiopia markab ay leedahay laga waayo badda Soomaaliya. arrintaasi waa arrin xadgudub ku ah qarannimada iyo jiritaanka dalka Soomaaliya, sababtoo ah Ethiopia waxaa daris la ah Eritrea, Djibouti iyo Sudan iyo Kenya oo ah dalal bad leh. badaha Ethiopia ay leedahay badda Soomaaliya lagama weynayo markab. maxay u dhihi weysay badda Kenya laga weyn maayo markab Ethiopia ay leedahay lagama weyn karo.
badda Suudaan lagama weyn karo markab Ethiopia ay leedahay badda Eritrea lagama weyn karo markab Ethiopia ay leedahay badda Djibouti lagama weyn karo markab ay leedahay Ethiopia waxay aragtay dalka Soomaaliya inuu dayacan yahay oo cid ka cishanaysaana aysan jirin madaxdeeduna ay tahay kaliya dad doonaya xukun iyo inay lacag iyo dhaqaale helaan oo kaliya marka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre dalka kaligood ma lahan dawladana kaligood ma leh baarlamaanka ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay soo dooratayna waxay ka dhigeen baarlamaan aan shaqeynayn garsoor aan shaqeynayn maxkamad sare oo aan shaqeynayn hay'ad fulin oo aan dadka u adeegaynin waxaan u aragnay madaxweyne aan sharciga ilaalinayn oo aan isku haynin haykalkii dawladda baarlamaanka iyo golihii fulinta iyo golihii garsoorka aan u dhaxaynin madaxweyne haddii ilaahay ku roon yahay aan siyaasad fog iyo mustaqbalka dalka Soomaaliya midna aan fiirinaynin kaliya doonaya inuu xukunka sii joogo oo maamul goboleedyada iyo dadka Soomaaliyeed loo cadaadiyo waxaan u arkaa inay tahay Soomaaliya halis weyn oo ku soo socota waxaana baarlamaanka iyo dadka Soomaaliyeed ka codsanaya inay ka hortagaan khatartaas inta ayna noqon Falastiinta Afrika qorshahan Abiy Ahmed loo soo dhiibay reer galbeedka ayaa wada waxayna doonayaan maadaama Soomaaliya si walba lagu fiiriyay oo lagu heli waayay Soomaaliya oo xasilan Soomaaliya oo ay maaragtay reer galbeed u hoggaansan Soomaaliya oo mida waxay garteen in Soomaaliya oo dhanba meesha laga saaro lagana dhigo qayb ka mid ah dalweynaha la yiraahdo the New Horn of Africa New Horn of Africa cusub oo ay hormuud ka tahay dawladda Ethiopia dal noocaas markii aad la midoobaysid waa inaad awood ahaan iyo dhaqaale ahaanba u dhigantaa siyaasiyiin badan oo waxaan arka dhahaya Yurub baa midowday adduunka midnimo ayuu ku wada socdaa waa sax Yurub way midowday laakiin Yurub xuduud kama jirto Yurub dalal ma kala haystaan hadday kala haystaanna way isku waafaqeen wayna ku heshiiyeen waxa weyn dalal horumar iyo dhaqaale gaaray dalal dhisan oo ciidamadoodu u dhisan yahay dalal heshiis iyo sharciga tixgeliya oo ilaaliya dal walba xor u yahay oo dadkiisu ay maamulaan hadday doonaana ay ka bixi karaan biri cid ku duulaysaana aysan jirin sida haddaba uu Ingiriisku uga baxay oo kale dhaqaalaha la yiri Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa la mideynaya iyo geeska Afrika maxaa dhaqaalaha iyo militariga isku keenay iyo maraakiibta dagaal ee Ethiopia ay soo gadanayso dhaqaalaha hadii la mideynayo dhaqaaluhu amni iyo nabadgelyo ayuu ku yimaadaa xoog iyo qabsi dal kuma imaado kumana soo maxalliga kumana bulaalo waxa qatar noo ah annaga inaysan jirin dhaqaale nooga yimaada dalalka Kenya iyo Ethiopia iyo Eritrea waxa kaliya nooga yimaada waxay tahay qaad iyo qamro ummadayadana lagu baabi'iyo oo lagu haliyo waxaan dadka Soomaaliyeed uga digahayaa inay raacaan diyaaradda Ethiopian Airways iyo Kenyan Airways oo ay dad cadow ah ay leeyihiin annagana ayaan diyaaradaha iyagu aysan tagi karin Ethiopia waxa weeyaan waxa la doonayaa dhaqaale ahaan in loo hanto waxa la doonayaa dad ahaan in loo hanto waxaan la doonayaa in ummad ahaan loo hanto oo nala ka dhaadhiciyo mingista iyo siyaad barre wixii ay sameeyeen hal iska iloobo mingista iyo siyaad barre waxa ay sameeyeen waa wax hadeertaan dhacay 1800 sano ka hor ayaan Ethiopia iyo anagu is haysanay oo dagaalamaynay oo aan dhul iyo dad iyo diin isku haysanay walina kama aynaan heshiinin ummadayaduna waa ummad kala daacsan waa dal aan dawlad xoog la lahayn waa dal aan dhamaantood dalka controlin waa dal aan xuduudaha iyaga iyo badaha iyaga controlin waxa weeyaan ma lama heshiin karno dal dhisan oo wax walba qaran oo wax walba haysta markii aan qaranka iyaga dhisano oo ciidamada badda dhisano oo ciidamada cirka dhisano oo xuduudaha iyaga aan controlno ayaa heshiisyada noocaas gali karnaa markaan ogaano dalkayga qofka soo galay iyo qofka ka baxay oo aan leenahay borderna la ka soo galo iyo mid laga baxo ayaan heshiisyada noocaas gali karnaa dhaqaalaha waxa lagu galaa inay dhaqaalaha ay dalalku isdhaafsadaan dalkayga wax dhaqaalaha oo Ethiopia ka soo gala male wax inaga naga gala ma ahane annaga ayaa lacagta dollarka geeyna qaad ayaan uga soo bedelanaa qamrana way noogu soo qariyaan oo way noogu soo daraan dalkayga iyo dadkayga ummad bay ku soo daayeen aan lahayn xad celiya iyo ciidan kontaroola waqtiga ay ka bixi doonaan Soomaaliyana aanan garanaynin waxaan ugu baaqayaa madaxda dalka Soomaaliya madaxweynaheeda ugu horeeyo inay heshiisyada ay galayaan ay ka fiirsadaan
inay kuwii ay galeenna ay noo sheegaan oo bannaanka keenaan oo ummadda Soomaaliyeed iyo baarlamaanka ay la wadaagaan wixii dan noo ah annaga ka qaadanayna waxaan dan inoo ahayna naguma qasbi karaan ha ogaadaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Xasan Cali Khayre inaysan dalka lahayn weligoodna aysan madax ka noqonaynin ha ogaadaan inaan dalka la leenahay ha ogaadaan inaan dawladnimada la leenahay ha ogaadaan inay bari lagu xisaabtami doono Maxamed Cabdullaahi Farmaajo haddii la yiri fuli waxa reer galbeedku ay doonayaan annagu reer galbeed ma nihin dad Soomaaliyeed baan nahay dalka iyagana lama dhiibi karo taa ka midana laguma xadgudbi karo arrimaha soo socda qatar ayay ku tahay ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa qurba joogta inay ururkii dib u xoreynta dalka oo kale ay sameeyaan inay mudaharaadyo dhigaan inay qoraan inay ka dacwoodaan heshiisyada qarsoodida ah ee lala galayo dawladda tabarta yar ee la doonayo in looga faa'iideysto inta aysan tabaraysan waxaan kaloon ka digaynaa qataraha kale ee ummadda Soomaaliyeed lagu kala fogeynayo ee ah in maamul goboleedyada iyo dawladda la iska horkeeno in ciidamadayada la daciifiyo oo maalin walba ciidan lagu soo guro dhulkayaga aan xoreynaynin oo waxna u qabanaynin reer galbeedku markii ogaadeen maamul goboleedyadu inay horumar sameynayaan oo ay tacliin iyo maxaa la yiraahdaa iyo dhaqaale iyo dib u dhis lagu tartamayo oo dekada la rabo in la dhiso oo mashaariic la rabo in la fuliyo oo ay dalal kale ka faa'iideysan karaan sida Turkiya oo kale ayay waxay soo alifeen barnaamij ah hal la yareeyo awoodda maamul goboleedyada waxayna u soo adeegsadeen filla Soomaaliya waxa kaloo loo adeegsaday dawladda Itoobiya oo cadaadis ku haysa maamul goboleedyada doonaysana in ay danaheeda waaweyn ay ka fushato filla Soomaaliya ayadoo u tusaysa inay u cadaadinayso maamul goboleedyada si ay maxaa la yiraahdaa ay ayaga u hoos yimaadaan laakiin arintaasi waa arin dawladnimadayada iyo nidaamkayaga dhaawacaysa waa arin ummadda Soomaaliyeed iska horkeenaysa waxaan ugu baaqayaa dawladda Soomaaliya iyo madaxdeeda inay ka feejignaadaan qataraha loo maleegayo oo ay reer galbeedku gadaal ka taagan yihiin carabtuna ay dhaqaalaha ku bixinayso waxa weeyaan Eritrea iyo Ethiopia iyo Soomaaliya iyo Djibouti waxay midoobi karaan markay ka heshiiyaan dhulalka iyo xuduudaha iyo dalka iyo siyaasadda iyo qowmiyadaha mujtamaca markay ka heshiiyaan Ethiopia markay qirato inay 100,000 dad ka badan ay magaalada Muqdisho iyo koonfurta Soomaaliya ku xasuuqday gardarro cad ayagoon sharci ku soo gelin dalka Soomaaliya Ethiopia markay qirato inay dhul naga haysato iyo dal ayaanu la heshin karnaa Ethiopia markay dhulkayaga iyo dadkayaga ay qirato inay ogaadeen iyo dhulka Soomaali galbeed ku xasuuqday oo genocide ku sameysay oo adduunyada marqaati ka tahay oo ay xorriyadoodii xuquuqdooda siiso ayaan la xoroobi karnaa ayaan la midoobi karnaa markaas ayaan Ethiopia iyo anagu xisaabtami karnaa laakiin dad iyo dal ayaan idinka haystaa haddana dalkiinii iyo dadkeenii xorta ahaa ayaan madax banaanidiisa ilaalinaya waa waxa weeyaan crocodile tear waxa la yiraahdo waa oohintii yaxaaska oo kala weeye waa wax la rabo in dadka Soomaaliyeed lagu seexiyo laakiin ummadda Soomaaliyeed way soo jeedaa wayna ogtahay qiyaanooyinka ay maleegayaan Etoobiyaanka iyo Eritreyaanka iyo Carabta iyo reer galbeedka is soo kaashaday oo waligoodba ummadda Soomaaliyeed ka soo horjeeday ummadda Soomaaliyeedna waa ummad soo jeeda mar walbana ku baraarugsan inay cadawgoodu uu sheeda u taagan yahay waxaan leeyahay walaalayaal dalkan iyo dadkan adinka iska leh difaacda dalkan iyo dadkan adinka iska leh ka cishada cadawga dalkan iyo dadkan kuwa diirka idinkaga eg laakiin qalbigu madow yahay oo adduunyada kaliya ka fakaraya oo aakhire iyo mustaqbalka ummadiina ka fakaraynin iska dhiciya oo iska celiya oo ha uga xishoonina waa madaxweynaha waa ra'iisul wasaariye waa maxaa la yiraahdaa waa wasiir ha uga xishoonina ha uga xishoonina mustaqbalkiina iyo dantiina iyo dalkiina iyo ilmihiina mustaqbalkooda inay bilaash ku bixiyaan oo macna darro ku dhiibaan ha uga xishoonina hana ku taageerinina qabiil iyo qabyaalad iyo adeer maxaa yeelay Ethiopian markuu soo galo kuma kala yaqaan inay hawiye tahay iyo inaad daaro tahay iyo inaad dir tahay iyo inaad digil iyo mirifla tahay tay arkaan way dilahayaan
gabadhay arkaana way fuulahayaan ninkii arkaana xabsi iyo dil ayay madaxa uga jarhayaan ma kala jecla waa ninkii Etoobiyaanka ahaa bakaaraha inta dadka askariga ahaa markii ay Etoobiya joogtay intuu bakaaraha istaagay dadka isbaarada u dhigtay yiri qof walba intuu marada fidiyay kunka shilin ee haysta halkaan ku rido markii qof walba ku ridayna uu yiri kunkii uu lahaa kala soo baxo markaas dadkii yiraahdeen war anagu kunkan qof walba midkuu lahaa ma yaqaan waa isku wada egyahay sidee ogala soo baxnaa markaas buu yiri kulligiin sidaas ayaa noo wada tihiin sida kunkaas isku egyahay ayaa idinkuna isku egtiin iskuguna kaaya mid tihiin marka kiina shabaabka iyo kiina muqaawamada iyo kiina cala uustahay nala socda Etoobiyaanku isku mid ayay u yihiin markay dalka qabsadaana isku mid ayay u noqonayaan sida ay Falastiin isku mid ugu noqotay markii horena ay u kala dhuuman jireen oo u kala ordi jireen walaalayaal dalkan iyo dadkan haddaysan dadkii lahaa difaacanin oo dalkii lahaa u hadlin oo dadkii lahaa ay siyaasiyiin kaliya ku macnaha oo kursi kaliya raasanaya iyo dalaaliin u shaqeeya shirkado shisheeye oo som oil ay kamid tahay maxaa la yiraahdaa ay kamid tahay maxaa la yiraahdaa ishaq ee shirkadaha shidaalka Soomaaliya ka raba kuwa u shaqeynaya la yiri waxa tahay American citizen waa inaad fulisaa America danaheeda iyo la yiri waxa tahay Norwegian citizen waa inaad danaha Norwegian ka fulisaa taas hal iska celiyo hal iska dhiciyo ayaana looga xishoonin yaana qabiil lagu taageerin qabiil looga hortagana malihi qabiil looga hortagana malihi waxaan leeyahay Soomaalinimaha looga hortago islaamnimaha looga hortago dalkana hal ilaashado wasalaamu calaykum intaas ayaan ku soo koobinayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh fadlan sii gudbi oo qof kasta Soomaaliya u sii gudbi si uu dadka Soomaaliyeed u baraarugaan ha ogaadaan cadawga iyo ciidamada ku soo socda ha ogaadaan qadiyadaha loo degay ha ogaadaan inaan la doonayo in amisomta ay hadda reer galbeedku keeneen mid kale lagu bedelo oo ah Eritrean iyo Ethiopian iswata iyo kuwa Soomaaliya oo diirka Soomaali uga eg qalbiga ka dhintay waa maasantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh